arrin khataro intaaba isku fuuqsama ku sheega markaasuu rasuulku wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam kuffa calayka hada wal carabkaaga iska qabo carabka iska qabo ku rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yiri mucaad ibn jabal ya rasuul allah wa inna lam waakhaduna bima natakallam oo rasuulka ilaahay miyana loo qabanaya waxaanu ku hadalna miyana loo qabanaya sug waa habeen jimca soo galayo rasuulkana ha lagu saliyo sallallahu alayhi wasallam إيشك رسولك إلهيو وح عمل جنة الصواب يقول نقضة نار تينا كبت بعدنا الصواب يقول نقضة وسؤال آدوين صحابة قالب النبي عليه الصلاة والسلام سؤالها كواري بدي شرين هذا سؤال ويديانا هل كيقول متى إياك مكعدد ويدين شرين وهذه أركي سؤال في الصحابي قاس ويديه وحوش رسولك عليه الصلاة والسلام أعماشي وأوينيت توحيدك وقبل أبي تعبد الله ولا تشرك به شيئا إلهي كليدي بد عابدي وشريك لي ميسر صلاة آيات أوغي بشهر رمضان آيات سومي حجك آيات قدن سكد آيات بحن أرمي وأوين موشاق النبي عليه الصلاة والسلام البابدي خيرك أيها هدنا وتلمامي أو كشاق السوان كوينو قاشان يحي habeenkii tukashada la tukanayo qiyaam leelku hadana u sheegay nabigu kaleey salaatu wasalaam markaas wuxuu ku yiri ala adulluk bimilaki dalik war ma ku sheega inta wax isku fuuqsaday arrin khataro intaaba isku fuuqsaday ma ku sheega markaas rasuulku wuxuu ku yiri kaleey salaatu wasalaam kuffa alayka hada wal carabkaaga iska qabo ku rasuulku kaleey salaatu wasalaam markaa wuxuu yiri mucaad ibn jabal ya rasuul allah wa inna lam waakhaduna bima natakallam oo rasuulka ilaahay miyana loo qabanaya waxaanu ku hadalna miyana loo qabanaya sakilatka ummuka ya mucaad hooyada goblante wahal yakubbu an-nas ala manakhirihim aw ala wujuhihim wahal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim hooyada goblante mucaad oo hooyada ku weydaye miya qofka waji xaga mad wajiga ama sanqaroorka loogu tuurayaa naarta iyo cadaabka loogu tuurayaa waxay carabadoodu u shaqeeyaan mooyaane carabkiisu wuxuu gooyay mooyaane carabku waa khatar waa carabka la iska ilaaliyo waa carabku waa musiibo waa carabka waa la sii daayay maanta waarnin weyn oo la sasabayo oo la leeyahay waa carabkaaga iska ilaali waa carabkaagu ku halaagin warbarigii hore dadka waayeelka inta u waaweyn hormuudkay ahaayeen dadka marka waxa weeyaan daayirta qalqaaliga iyaga kala hadli jiray laakiin maanta isbedel ayaa jira waxay oran jireen dadkii hore waa wanaagsanaa nin weyn wuxuu cunaana waa jal wuxuu raahdaana waa tartaaran maxay le mar walba qofku sii weynaado xaqi xabaasha iyo xaqi qabriga iyo xaqi iilka ayuu sii dhawaaday qofka ugu cayrsan ayuu nabigu ka warramay calayhi caayda ugu daran ciday tahay markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam su'aal buu weydiiyay saxaabada markaas wuxuu ku rasuulku calayhi salaatu wasalaam atadruuna mal al-muflis ma taqaana mufliska kaleeyda markaas waxa saxaabadu al-muflisu fiina man la dirham wala mataa wa qof agab mood iyo nool midnaba aan haysan muflisku waxa uu naqaana mid adduunyo ka faramaran lacag ma haysto alaabna ma haysto muxuu ku jawaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu tilmaamay al-muflisu min ummati من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أقف مضي إذا كمدوا قيامها إيماني قيامها لكين دونا أعمال وين بوتها صلاة بو ليمي صوم بو ليمي صدقات بو ليمي حج أيو ليمي أعمال وين وسودة على أدويدي لكن ما يلالين أعماشيسي والله دبس عضاه كان ديكي سودادي كان دكتي سمالك قدعي كان ديفبو كقاتي كان قاو قراعي مالين تاسع لوقع حق هذا ومالين إلهي يقول تلقى سبحانه وتعالى إنه دتك وقع الحق هذا وعدي عدكو قرد الروتي انت ويرنا الله كيله ربي سبحانه وتعالى وحق هذا بل وحو كسو قارسيه النبي عليه الصلاه والسلام
neef adhiyoo neef kala hirdiyey in hirdidii looga jarayo dadkii daba socday baa loo qaybinayaa xasanaadkiisii ee gashiga ku lahaa kuwii dhiiggooda daadiyey kuwuu xantay kuwuu xumaanta ku sheegay maalintani waa maalin weyn